haddaad wiil tahay iyo haddaad gabar tahayba fariintani walaal adiga ayay kugu socotaa. dhammayso videoga si aad u fahantid pointiga sheekada. dad ayaa jira dadka jecel inay feelingkooda iyo dareemahooda ay ku ciyaaraan oo jacayl been ah iyo mustaqbal been ah ku abuura iyaga oo og hadhowto qofkaas inayan la gurinaynin. war ma og tahay qofkaas isaga ah inuusan tooy uusan ahayn boombale lagu ciyaarayo inuusan ahayn uu qof dhan uu ilaahay karaameeyey oo adiga kula mid ah oo dareen leh inuu yahay ma og tahay. qofkaas dhaawaca aad gaarsiinayso hadhow noloshiisa dambe in aad wax weyn gaarsiinayso ma og tahay. dad baa jira ka soo kaabsada hadday ka soo kaabsadaanna hadhowto qof aanba aaminin oo kalsoonidii ka dhimatay. yaa sababay? adigaa sababay soo maaha. dad baa jira aan kaba soo kaabsan ooba maryaha intay dhigtaan dariiqyada meelaha mara. dad baa jira naftoodaba halligoo naftoodaba u waaya qofkaas isaga ah. war ilaahay inta aad ka baqdaan ummadda haddii jacaylku uusan dhabka ahayn qofkan waqtiga ha ka lumin isaga ah. dadka dhaawaca ee dhaawaca intaa la egeystana hadhowto mustaqbalka ilaahay wuxuu calaf uga dhigaa naagta ugu liidata ama ninka ugu liita. waayo qof waliba waxa uu sameeyo unbaa laga gooyaa soo maaha. dhibaatadii aad soo marsiisay qofkaas ogow inay meeri kuu taallo haddii aadan cafis qofkaas aadan ka dalban isaga ah. hadhowto waxay ku dambeeyaan guur inkaar qaba iyo caruuro jaanjaaman iyo nolol adag ayay ku dambeeyaan. waayo qof bila aadan ah ayaad soo dhaawacday soo maaha. allah yahdiik. war ka waantooba oo qof walba qofkiisa hala jaan qaado. qofkii doonaya waqtiga wuxuu la riixana wax waqtiga la riixa ma waayayo. qofkii mustaqbal doonayana wax mustaqbal doonaya ma waayayo. yacni qof walba qofkaaga abaar.